sharci usuuliga ayaan u raacayna doorashooyinka sharciga haddii laga leexdana dalku ma soconayo consensus iyo isu tanaasul qoyskaa looga baahan yahay dadka qarankuna waa taasoo kale doorashada sharciyada aynu marro wixii sharciga ka duwana meel madowna geeyaa aynu ka dayno kuma jirto dimuqraadiyadda waa markayga ahleeyay ma jirto ma baaskeenayno ciyaalka xisbiga ma jirto wallahi haddii markayga la sii waayo xabad baa qaadanaya taa rag baa hor u waayo ha ku lugu taawado qaranku taa ku heshiin waxa ilaahay mahadiya oo aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inuu magaalada Burco oo ah magaalo taariikhi ah uu noogu qabsoomayo shirkii sideedaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye oo la asaasay waxa budliyo oo ahaa oo asaasay waqtiga odayaal u badan aqoonyahan waaya araga aan oran karo waxay ahaayeen qayb weyn oo kamida labayntii Somaliland intoodii dhimatay Allah u naxariisto oo fara badan waan u faataxaynaa faatax bismillah intooda xanuunsanaysa asaasii madaxweynihii hore ee Somaliland oo xisbigan xaalada adag ku soo hagaamiyay iyo halgankii Somaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo isagana way u ducaynaynaa ilaahay caafimaad siiyo cumrigiisa dheereeyo ifsan iyo aakhirasana way u ducaynaynaa waxaanu taariikhda ku gelayaa xisbigii uu asaasay taariikhda Soomaaliya oo dhan inta soo ku hadashay xisbiga asaasta gaar ahaan Somaliland inuu ka tagay xisbigiisii oo laba doorasho ku guuleystay tii saddexaad diyaar ku ah haddaynu nahay dadkii xisbiga asaasay haddaynu nahay dadkii raacay wadadii iyo axdii loo dhigay aragtideedu waxa weeye balanteedu inuu kulmiye noqdo xisbiga adduunka ugu cimri dheer sida ANC oo Nelson Mandela oo baya asaaseen iyo xisbiga dimuqraadiga Mareykanka boqoliyo ka tirsanaya inuu noqdo xisbiga kulmiye ayaa inoo balan oo aynu sii wadayna oo jiilba jiil u dhibaya hadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa iftiimiyay asbaabaha uu asaasan yahay xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye iyo waxyaabihii shacabka Soomaaliland u ballan qaaday xisbiga kulmiye inuu yahay xisbi dimuqraadi ah oo u hawlgalaya xaqiijinta iyo taabagelinta madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo u halgamaya in Soomaaliland ka mid noqoto golayaasha qaramada midoobay oo eeyada iyo golayaasha caalamiga oo dhan oo soo ceshada xuquuqdiisa madax bannaanida ee uu helay 1960 bishii Juun 26 xisbiga kulmiye mabdaiisa labaad waxa weeye tiirarkiisa ugu waaweyn waa xisbi waxa uu u taagan yahay bulsho dimuqraadi ah oo saldhig u yihiin mabaadi'da tala wadaaga kuna qotoma diinta islaamka dhaqankeena soo jireenka ah iyo sidoo kale waaya aragnimada togan ee aynu ka soo dheegan karno horumarka sayniska iyo tiknoolajiyada casriga ah inteeda togan inteeda shirka maaha xisbiga kulmiye waxa uu mudnaanta siinayaa bulsho nabdoon oo u bisil sinaanta isxaq dhowrka iyo nabad ku wada noolaanshaha xisbiga kulmiye waxa uu u taagan yahay tayeynta
hay-adaha dowladda labadii xukuumadood ee xisbiga kulmiye ka dhismay ee tala dalka hayay muddadii ay hayeen si guud dhulxaas waxa uu mari doonaa waxqabadkoodii xisbiga kulmiye wuxuu ummadda u ballan qaaday aasaaskiisii iyo ololayaashiisii iyo barnaamijka dadka soo hordhigayba in uu horumarin ku samayn doono arrimaha adeega bulshada xisbiga kulmiye wuxuu ummadda u ballan qaaday inuu dhisi doono oo adkayn doono difaaca guud ee dalka iyo amniga gudaha ee dalka difaaca qaranka soddonka saddex sano jirtay maalin qura cadow inooga soo gudbay intaasoo dagaal baa lagu qaaday meelo argagixisan leh cadowga soomaalida ulaadee faraha badan leh waxa laynoo soo marlaayay waa ragga birta dhagaxa ah ee dalka ku xeeran aad iyo aad u wanaagsan wixii itaalka xukuumaddu ahaa ee weliba hay-adaha horumarinta ahaa waxaa loo leexiyey daryeelka qalabkooda tababarkooda adkayntooda iyo daryeelkooda intii la kali karaayo shirkii london ee 2012 dad badan oo reer somaliland ah oo aqoonyahana ayaa dura ama dhaliira shirka inuu tagnay iyo inuu galay anigu taa waan ka duwanahay waxaan leeyahay saxaba shirka inuu tagnay wuxuu ahaa shirkii caalamiga ahaa ee ugu horreeyey ee la isugu keenay dowlado fara badan oo caalamka ah isugu yimaadeen oo ninkii ingiriiska ahaa David Cameron uu hirgeliyey waxaan qabaa inaanu tagno madaxweyne sinaayada sax uu ku ahaa qaran ahaana sax baynu ku ahayn weliba waxaanu ku tagnay tala ballaaran oo ka ballaaran xukuumad iyo xisbi ee waxa uu sameeyey madax dhaqameedka guurtii baarlamaan iyo xukuumad waa laga talageliyey shirkaas wuxuu guddoomiyey qodob weyn oo muhiim ah oo ahaa malaha dhowratan dowlad bay ahaayeen waxa la guddoomiyey waa inay ka wada tashadaan labada qaybood oo siman Somaliland iyo Soomaaliya aniga oo taa ka duulaya mar labaad fursad waxaan u helay shirkii Jabuuti oo ay joogeen Mareykanka iyo EU-da iyo Ethiopia iyo Jabuuti oo fagaariyo kala mar labaad aan helay dood adag baa ka dhacday idinkayd ku xidhantay inaad qirtaan waa laba dowladood oo isugu baanu ahayn koobiskaashka bay naga duntay walaalaya waanu ixtiraafsanahay waa dowladii lixdankii intaasay Somaliland 30 sano idinka martay waxa sii horumarsan cadaawadii naga dhaxaysay imikana waxa bay ku dareen inay Puntland ku dusha Somaliland oo qayb ka mid ah Soomaaliya marka Somaliland ciidan ahaan qarannimada way ku daafacaysaa siyaasad ahaan waa ku dagaalamaysaa goobta ay tahay inay ahaato xisbiga kulmiyana waaya aragnimadeeda iyo halgannimadeeda iyo siyaasadeeda qeexanana laabka lahayn ayuu arrintaa ka taagan yahay oo aanay cidina uga horreynayn ka jooga ka soo socda iyo kii tegay Puntland harcad laascaanood ka soo weerar tagtay oo dhibaatada intaa leeg iyo dagaalkaa socda iyo wixii halkaa dambi ka dhacay ay dusha ka saaran tahay maamul goboleedka Puntland sharcigu soo dhigaya inuu raacayna doorashooyinka sharciga haddii laga leexdana dalku ma soconayo consensus iyo isu tanaasul qoyskaa looga baahan yahay dadka qarankuna waa taasoo kale doorashada sharciyada aynu marro wixii sharciga ka duwana meel madow nageeyaa aynu ka dayno kuma jirto dimuqraadiyadda waa markayga ahleeydi ma jirto ma baaskeenayno ciyalka xisbiga ma jirto wallahi haddii markayga la sii waayo xabad baa qaadanaya taa rag baa hor u waayo ha ku lugu taa walaalo qaranku taa ku heshiin distoorkeenu muu keenin xisbiyada doorashadii sidii uu mudeeyay guddiga doorashooyinku aniguna aan saxeexay ayaynu ku soconaynaa